wax soo saarka ama ka faa'iideysiga kheyraadka dabiiciga ah ee Alle uu ku manaystay ama uu ka buuxiyay xeebaha Soomaaliya. Magaalada waxay caan ku ahayd isticmaalka kalluunka kala duwan si aad ahna loogu isticmaali jiray magaalada Kismaayo, balse wixii ka dambeeyay burburkii dawladii dhexe ee dalka Soomaaliya ayaa waxa hoos u dhac ku yimid wax soo saarka xeebaha magaalada Kismaayo, taas oo ay jilaabatada kalluunka ama malayga ay ku macneeyeen in ay burbureen suuqyadii kalluunka lagu kala iibsan jiray ee magaalada Kismaayo. taasina ay horseeday in dadkii ka ganacsan lahaa kalluunka magaalada ay aad u yaraadaan. sidoo kale waxa ay sheegeen ganacsatada in maraakiibta dawladaha shisheeye ee xaalufiya xeebaheena dalka Soomaaliya ay waxyeelo u geystaan markii ay u baxaan inay soo kalluumaystaan, ayagoona markii ay inta ay sheegayeen diidana inay ka soo hormuuqdaan kaamirada sabab xagga ammaanka ah. suuq yar oo dadka reer Kismaayo si kumeel gaar ah hadda ay ugu iibsadaan kalluunka ayaa waxaa maanta booqatay kaamirada Universal ee magaalada Kismaayo. ganacsatada waxa ay noo sheegeen in xaaladda suuqa yar uu yahay mid iska caadi ah, taasi oo ay kala jeedeen in kaliya ay ka soo dhacsadaan nolol maalmeedkooda balse aysan jirin wax horumar ah oo ay ka sameeyaan marka laga hadlayo iibka kalluunka qaybihiisa kala duwan. waxa ayna baaq u direen maamulka Jubba State ee magaalada Kismaayo ka arrimiya in ay wax ka qabtaan suuq la'aanta haysata kalluumaysatada magaalada Kismaayo. waxa ayna sidoo kale maamulka iyo hay'adaha caawiya Soomaalida ugu baaqeen in ay qalab la soo gaaraan kalluumaysatada maadaama aysan jirin wax qalab oo haystaan. Salaaman Xafiis Ali wallahi waxa la gadaa laqamka kiilii 78 kalluunka caadiga 90 alxamdulillah hatta Kismaayo ku noolnahay ee Kismaayo aanay اليوم كان عندنا قطع سنة وحوارة جاج ما جرتو ما كم إذا معي بس معنا هذا الشيء كلام مجران هو صار عنده عايز يجروا هذا اللي هو كم الناس لا باس اللي هو سيدور اللي هو والله وانا قدنا ونonline وانا زائد ودنينا يا وجعلي هذا بلاده مركور وايرا هذا كله نوفر سوق كله كنا ما نقدر وتعالى جاب الشاشة ولا جاب الصورة ولا والشاف كذي ساكت ده si kastaba xaaladan ay ku sugan yihiin ganacsatada kalluunka magaalada Kismaayo ayaa waxa ay muujinaysaa in burburkii dalka ka dhacay ay wada raaceen horumaradii hore loo sameeyay. Maxamed Cabdi Caynte, telefishinka caalamiga Universal.